ra'iisul wasaaraha dalka Finland Sanna Marin ayaa fadeexad weyn dhex gashay kadib markii warbaahinta iyo baraha bulshada lagu faafiyay muuqaallo iyadoo joogta goob caways waxaana lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha Finland inay isticmaashay daroogo sababtoo ah dad badan oo la joogay waqtigaas ra'iisul wasaaraha ayaa laga maqlayay muuqaalka la faafiyay iyagoo ka hadlaya maandooriyaha cocaine. arrintan ayaa dood weyn ka abuurtay gudaha Finland waxayna sababtay in siyaasiyiin badan oo Finnish ay ugu baaqaan haweeneyda da'da yar ee hogaamisa Finland in xilka laga qaado halka ay kuwa kalena soo jeediyeen in laga qaado tijaabo daroogo oo lagu hubinayo ra'iisul wasaaruhu inay isticmaashay daroogo. laakiinse ra'iisul wasaare Sanna Marin ayaa beenisay inay maandooriye isticmaashay iyo inay wax khalad ah ku kacday. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa waxa ay tiri sidan: waan ka xumahay in muuqaaladan la faafiyo oo dadweynaha la gaarsiiyo. muuqaaladani waxay ku saabsan yihiin anigoo saaxiibo la baashaalaya oo xafladaynaya weliba si xamaasad leh oo wadata qoobka ciyaar iyo heeso. anigu wax khalada ma samayn. waxaan filayay in wixii shaqada ka baxsani ay ahaanayaan qarsoodi. arrintani waa mid xadgudub ku ah noloshayda gaarka. sida ay ku warramayaan saxaafadda maxalliga ah ee dalka Finland, qaar ka mid a dadkii xafladda la joogay ra'iisul wasaaraha Finland ayaa ku qaylinaya kuna dhawaaqayay erayo tilmaamaya daroogada cocaine-ka iyo magac koox gaangis ah. inta badan siyaasiyiinta Finnishka ayaa muujiyay inay ka walacsan yihiin suurtagalnimada in arrintan ay dhaawac u geysanayso muuqaalka iyo sharafka ra'iisul wasaaraha dalka Finland, iyagoo sheegay in arrintani dalka oo dhan ay saameynayso. dhinaca kale, qaar ka mid a wargeysyada siraha faafiya ee ka soo baxa Finland ayaa faafiyey muuqaallo kale oo cusub kuwaasoo laga duubay ra'iisul wasaaraha Finland Sanna Marin. muuqaalkan cusub ayaa muujinaya iyadoo qoobka ciyaar la ciyaaraysa ninka ay la ciyaarayso ayay saxaafadda Finland ku sheegeen inuu yahay heesaaga caanka ee Olavi. inta badan siyaasiyiinta iyo shacabka Finland ayaa arrintan ku tilmaamay ceeb weyn oo ay samaysay ra'iisul wasaaraha dalku iyo fadeexad weyn oo soo gaartay Finland maadaama haweeneydana ay tahay qof xaasa oo la qabo. halka wargeysyo kale oo Finland ka soo baxa ay qoreen in ra'iisul wasaare Sanna Marin ay tahay qof anshax xun oo khiyaamaysa ninkeeda isla markaana ay xiriir hoose la leedahay fanaankii ay la ciyaaraysay. ra'iisul wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa ku eedeysan dembi weyn kaasoo ah inay isticmaashay daroogo, taasoo haddii ay xaqiiq noqoto ay xilkeeda ku weyn doonto. Mikko Karna oo ka mid ah xildhibaanada Finland oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi sidan: muuqaalada laga duubay hogaamiyaha Finland waa kuwo fadeexad weyn muujinaya. dadkii iyada goobta xafladda la joogay waxaa muuqaalka laga maqlayaa iyagoo marar badan ka hadlaya oo ku dhawaaqaya ereyga burka. marka la fiiriyo burka waxaa loo tixraaci karaa ama loo yaqaanaa daroogada cocaine-ka marka loo eego afka suuqiga ee Finnishka ama afka dhalinyarada waqtigan. waxayna arrintani caddaynaysaa meeshaas in darooga ay taallay ama la keenayay waqtigaaba. sidaas darteed waxay ku khasban tahay hogaamiyaha Finland inay marto tijaabo daroogo oo baaritaan la mariyo si loo hubiyo inay ku dhacday xadgudub darooga iyo in kale. waana arrin fool xun oo aan ka xumahay in hogaamiyaha ugu sarreeya dalkan in looga shakiyo daroogo. waa arrin dhaawacaysa sumcadda dalka iyo xisbiga talada dalka Finland haya. ra'iisul wasaaraha Finland Sanna Marin haddii lagu helo labadan dembi ee lagu soo eedeeyey waxay ku weyn doontaa xilkeeda. sidoo kale fadeexadani waxa ay ka saari doontaa masraxa siyaasadda oo dhan.